السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan haddaba qodobada barnaamijkeena caawa aanu ku soo gudbinayno waxaa ka mid ah iyadoo Trump uu u hanjabay caawa mar kale Iran inuu weerari doono goordhow waxaa soo gabagaboobay shir jaraa'id oo ay qabteen qaybta qaabilsan warbaahinta ee xarunta Khatimul Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba wixii ay ku sheegeen shirka jaraa'id barnaamijkan idinku haya sidoo kale Mareykanka ayaa iyaguna war ka soo saaray xaaladdu halka ay marayso gaar ahaan Hormuz ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna war cusub soo saaray caawa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka dhismaheedii ku yaalay dalkaasi Mareykanka ayaa lagu kala cararay sababtu maxay tahay tafaasiil baan idinkaga hayaa iyo qaybaha dambe ee barnaamijka aanu ku soo qaadan doono ilaa 5 dawladood oo dawladaha islaamka ka mid ah oo markan xooga saari doona inay isu xil saaraan dhamaynta xiisadda ka taagan gobolka bariga dhexe haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda gobolka bariga dhexe gaar ahaan xiisaddan cusub ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran waxaynu ka soo sheekeynay xaalku halkuu marayo ilaa barnaamijkaygii labaad aynu isla ogeyn Trump inuu hanjabay uu yiri caawa mar kale ayaan weerari doonaa Iran haddaba marka waxaa jira xafiis dhanka warbaahinta u qaabilsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxa la yiraahdaa xarunta Khatimul Anbiya taliya leedahay rag kale leedahay waxay qaabilsan yihiin kaliya wararkan inay ka jawaabaan shirar jaraa'id qabtaan propagandada iyo waxa kan ka hortagaan wixii la hanjabayo meesha laga hanjabo xafiiskaas shaqadaas uu qabtaa maqarru Khatimul Anbiya leedahay xafiiskii marka shir jaraa'id qabtay maadaama Trump iyo kooxdiisa iyo warbaahintii Mareykanku ay ka hadlayaan caawa marka la weerarayaa Iran waa la weerarayaa maxay sheegeen marka haddaba markaan adeegto soo warkan oo goordhow soo gabagaboobay oo ay sheegeen waxa la yiri xarunta dhexe ee Khatimul Anbiya waxay yiraahdeen haddii Mareykanku mar kale na soo weeraro ololka dagaalku wuxuu ku faafi doonaa meelo kala duwan taliyaha xarunta dhexe ee Khatimul Anbiya ee dalka Iran ayaa goordhow ka hadlay arrimahan wuxuuna sheegay hadallada iska soo horjeeda ee Washington waxay halis gelinayaan amniga ganacsiga caalamiga ah waxaan uga digaynaa Ameerikaanka haddii ay weeraro cusub nagu soo qaadaan inay heli doonaan jawaab ka adag kuwii hore haddaba hogaamiyaha xaruntan maqarra Khatimul Anbiya leeyahay ee dalka Iran wuxuu yiri waxaan uga digaynaa Mareykanka inay mar kale na soo weeraraan waayo waxa dhacaysa haddii mar kale ay isku dayaan inay na soo weeraraan ololka dagaalku inuu ku faafi doono meelaha hadda aanu gaarin iyadoo laga hadlayo kaabayaasha saliidda ama shidaalka Iran haddii dhibaato loo geysto waxaanu iyaduna sheegaynaa dad badan inay iyaguna dhibaatoobi doonaan haddiina la ka hor istaago shidaalka inaynu dhoofino dad kale ayaa iyaguna dhoofitaankaasu ay caqabadi ku noqon doontaa marka sidaas ayuu sheegay ninka taliyaha ah way marka ninkan marka wuxuu leeyahay sheekadu marka halkaasii joogtaa shirka jaraa'id ay qabteen ninka taliyaha odaga hadlay wuxuu yiri ololka meelo badan u gaari doona xaguu gaaraya Israa'iil xaguu kale gaaraya wadamada khaliijka imaaraadka ugu horeeyay jugta laga gali doona marka ila iska joogtaa ku roon Trump hadaa caawo marka la soo laabato ololka meel kale u talaabsan doona ala soo hanjabaya fariimaha hanjabaada ayaa hawada la isu marinaya Trump marka hore bilaabay wuxuu yiri caawa markaan jugta idinka gelin doona iyaguna jawaabtaas ayay bixiyeen haddaba marka waxaa soo kale war soo saaray ciidamada Mareykanka taliskooda dhexe ilaa CENTCOM iyaguna waray soo saareen hanjabaada iyo waxa socda meesha iyo daakuman ka dhigaya iyo arma ku dhacdaada socota wayaabisa haddaba markaan adeegto soo warkii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka iyaguna ay soo saareen goordhow taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxay ka hadleen arrimaha Hormuz waxayna sheegeen in Hormuz uu furan yahay oo aanay jirin cid xiri karta bayaanada taliska dhexe ee Mareykanka ayay soo saareen waxa ku jira
warbixinno ay leeyihiin marinka waa ammaan waxaa mari kara maraakiibtii u baahan mana xirna hadday yihiin maraakiibta ganacsiga haddaba marinkan waxaa loo furay dhammaan maraakiibta aan jabin cunaqabataynta Iiraan ay saareen Mareykanka waxay sheegeen taliska ciidamada Mareykanku boqolaal maraakiiba ayaa ka gudubtay yiraahdeen marinka Hormuz labadii bilood ee la soo dhaafay Iiraan ma maamusho marin biyoodka Hormuz mana xiri karto ciidamadeena Mareykankuna difaac ayay ku jiraan weerar kasta oo kaga yimaada dhanka Iiraan way marka Mareykankii maxaa waa ceeboobade adduunyadii oo dhan inta isla kacday shidaalkii qaaliyoobay Mareykankii muxuu u taataabtay Iiraan maxaa maraakiibtii yareedo noo soo gudbaysa xataa waa la joojiyay maxaa dhacay adduunka oo dhan isla qeeyay hadda marka maxay ku leeyihiin marbiyoodka Hormuz ma baxarnay hadduu soo xirneen ma asagu maro ayaga maraakiibtooda baabaraan ma baxarnay waxay ku leeyihiin maraakiibta kale way bari karaan labadii bilood la soo dhaafay dhowr boqol oo markaba ka gudubtay Iiraan ma u xirna intaas markuu daldalay waxa la yaab kale oo ay ka calaamadiyeen dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin qaybta ugu hooseysa waxay ku leeyihiin dibakaro difaacan ku jirnaa Iiraan ka cabsanaynaa hadayna soo weerarto iska difaacaynaa yab Iiraan waxay leedahay difaacan ku jiraa hadduu na soo weeraro jugta ka gelinayna marka adduunyadii oo weerartay yaa weerar ah yaa difaac ah hawshaas marka wararkaas kulul ayaa la isdhaafsaday saacadihii la soo dhaafay wararkaas halkaas ay kaga gudbaynaa wararka kale cusub ee caawa soo kordhay waxaa ka mid ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee la yiraahdo Pentagon ama wasaaradda dagaalka uu hadda u bixiyay ninka la yiraahdo Trump Pentagonka ayaa lagu kala cararay waa dhismo weyn oo dhowr dabaq ka kooban waay Pentagonka waa dhismo weyn dhismihii qaybo badan oo kamida waa lagu kala cararay maxaa laga baqayaa ilaa hadda tafaasiil badan lama hayo waxaa kulli lagu soo koobay walxo khatar ah oo dhanka hawada la soo marinayo oo sun camal ah dadkii waa kala cararay ka dhacday ilaa hadda marka warbaahinta ka hadlaysa waxa kuwii Mareykanka warbaahintu ka hadlayaan intaas waxa la raadinayaa xog maxaa dhacay ilaa hadda tafaasiil badan lama hayo laakiin dhig la qabta male nin kastoo xarunta ku jiray Allah uu bixi gab waxa orod ka dhaca shaqaalihii wasaaradii gaashaandhigga waa lagu kala carar waa goor dhaweyd marka ay waxa soo dhacayaan marka waa sheeko la yaab leh haddaba khadka dalka Mareykanka waxa ku jira wariye Shuute oo isagu kamid ah suxufiyiinta ku nool dalka Mareykanka mar walbana nooga soo warrama axwaasha mararka waxyaabaha ka dhaca gudaha Mareykanka Shuute marka hore soo dhawow marka labaad wararkan goor dhow soo baxay waa lagu kala cararay xaruntii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka maxaa laga qoray bal noo soo koob mahadsanid ustaad Cabdiqaadir Nadaara adiga iyo daawadayaasha Nadaara TV dhacdadan ayaa walwal iyo cabsi weyn abuurtay gudaha xarunta Pentagonka arrintan waxay timiday kadib markii dawladda Mareykanka ay shaaca ka qaaday in la xiray ilaa dhowr dabaq iyo meelo ay dadka maraan gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka marka arinta oo cabsida weyn dhalisay ayaa haddana wali waxay dawladda ay bilowday in ay banayso dabaqyo kala hor leh kadib markii laga shakiyay walxo oo lagu tilmaamay inay tahay danger amba qatar inay yihiin marka tafaasiishi iyo waxyaabihii hadalladii laga bixiyay cabsidaasi waxaa ka hadlay wakaaladaha wararka wararka ee Reuters waxay soo xigatay ka soo xigatay mas'uuliyiinta dabdamiska xaafadda Arlington ee gobolka Virginia ka tirsan in halkaasi loo diray kooxo dabdamis ah oo la tacaamula arintan cabsida keento khatarta ah marka si markaasi loo dejiyo dadka iyo jawiga oo aad u kacsan dalaadiis marka waxaa ka hadlay afayeenka ku hadlaya magaca Pentagonka ayaa wuxuu sheegay in xaruntaasi ay haysato
qalab aad u horumarsan oo lagula tacaamulo mushkiladaha markay dhacaan sidaan oo kale si tallaabooyin ka hortaga loo sameeyo. marka waxaa jiro brotokollo oo loogu talagalay badqabka xarumahan oo kale Pentagonka in la kala cararo oo xaruntii iyo dhowr dabaq dadkii taabtaan waa arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh. marka waxaa la sheegay in wasaaradda ay arrintaasi si dadkaasi ay u badqabi lahaayeen ay aad iyo aad uga shaqaysay. marka sidoo kale shabakadda la yidhahda CNN-ka ayaa iyadana waxay sheegtay in walxahaasi khatarta ah ay dhaliyeen in la xiro qaybo badan oo Pentagonka ka mid ah, xafiisyadii iyo dabaqyadii. iyada marka arrintu waxay isugu soo biyashubatay Nabarow inay arrintaasi ahayd digniin oo been ah, wax oo hadda tahdiid oo rasmi ah amba cabsi ahna ma aysan dhalin. waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa wariye maxamed cali shuute oo noo warramayey, isagoo nooga warramayey wararkii ugu dambeeyey dhismaha wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka Maraykanka oo lagu kala cararay. waa mahadsan tahay shuute. qaybta kale ee barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa ilaa 5 dowladood oo dowladaha islaamka ah ayaa markan si xoog leh waxay isu xilsaarayaan inay xiisadda ka jirta bariga dhexe damiyaan. sababtoo ah dhibaatada ugu badan dowladaha islaamka iyo kuwa carabta ku dhacaysa maalmahan Bahrain iyo Kuwait iyo jugta lagu hayay, Ciraaq way soo gashay, wadamadan kale way baqayaan. waxa khatarta ku jira waa dowladihii islaamka iyo kuwa carab. marka waxay leeyihiin arrinka waa inaynu wax ka qabanaa. awal sheekada waxaa ku jiray nimanka Bakistaaniyiinta iyo Qadariyiinta. hadda toos waxaa ugu soo biiraya ilaa 3 dowladood oo kale oo iyaguna doonaya inay arrintan xalkeeda gaaraan. marka maalmaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan ayay kulan u yeelan doonaan. Maraykanka iyo Iiraanna waxay isku dayi doonaan inay arrinteeda ku qanciyaan si heshiis looga gaaro sheekadan. haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al-Carabiya ayaa goor dhow qoray warbixin uu leeyahay warbixino ay heshay telefishinka Al-Carabiya ayaa waxay sheegayaan in la qaban doono kulan 5 dhinac ah, kaasoo markaa ay ku biireen Sacuudiga iyo Bakistaan iyo Qatar iyo Masar iyo Turkiga. 5 dowladood oo dowladaha islaamka ah inay kulan dhawaan yeelan doonaan, kaasoo ay kaga hadli doonaan in la xoojiyo hawsha dhexdhexaadinta ee Bakistaan iyo Qatar ay hore u wadeen inay iyaguna sii xoojin doonaan, iyagoo la xaajoon doona oo markaa ka shaqayn doona sidii ay ugu qancin lahaayeen Maraykanka iyo Iiraan in xiisadda taagan ay heshiis ka gaaraan. markii hore Qatar iyo Bakistaan hawshan waday, iyadoo Bakistaan ay bilowday Qatar ku soo biirtay. hadda waxaa leeyahay 3 dowladood oo kale hadda madax u soo galay iyaguna inay arrinka la dhameeyaan raba. waa Sacuudiga iyo Masar iyo Turkiga oo iyaguna arrinka hala dhameeyo taagan. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa warka ku saabsan madaxweynaha Lubnaan oo hadlay. wuxuu yiri annagu xal aan wada hadal ahayn ma hayno, ma la dagaalami karno Israa'iil. gacmuhu taagi waa ninkii cawn la dhahay awal buu dagaal ku jiray. dagaalkan Xisbullah ayaa ku jirta. nimanka dowladda marka niman meeshaada inay kafeygooda ku cabaan oo buuq badan ma rabaan. baashiya la ka qasay dowladnimada Israa'iil. marka wuxuu leeyahay wada hadalkan annaga danteena ku jirta. annagu haddaan Lubnaaniyiin nahay, Israa'iilna waxba nooma hayso, Iiraanna waxba nooma hayso. marka annagu inaan wada xaajoodkaas xooga saarno, arrintan u midowno, wada hadal nimankan aan isaga saarno. waxay rabaan inay Israa'iil wada hadal isaga saaraan. Israa'iil hore u sheegtay maxaa la hadlaa Israa'iil al-Kubra raadinayna in Israa'iisha weyn dhowr dowladood oo caraba inaan ku soo darsano dhulkooda qaadano. warkooda waa cad yahay. Netanyahu yaa sheegay, cid kasto iyaga kamid ah sheegtay. marka wada hadalka wax lagu raadinaa marka muxuu marka sheekadaas wasiir waxa soo saaray oo laga qoray madaxweynaha ninka la yiraahdo Cawn oo madaxweynaha Lubnaan ah. barnaamijkayga caawa naga inta asxaabay meel kasto nagala socoteen inta aynu ku joojinaynaa.
wixii kale oo warar ay soo kordhaa barnaamijyadayda dambe ayaanu idinkula socodsiin doonaa. barnaamijkan wuxuu ahaa kii saddexaad, waan filayaa inaad ka hesheen barnaamijyadii koowaad iyo kii labaad oo aan warar aada muhiim oo idinkaga soo gudbinay. laagareeya oo sheergareeya barnaamijka asxaabay, meel kastood naga daawanaysaan. inta aan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.